اوكي ninkan maxaad magaciisa maxaa ku sheegtay maxaa la yiraahdaa tiri اسمان كمال الدين حاج صالح okay ninka hooyadii aabihii ma aragtay weliga telefoon ma kula hasho weliga hooyadii aabihii hal mar baan iyada ana hurdo habeen soo garaacday oo tirooyo meel baadiya deganahay Allah ku xafido bas wax kale ma dhahay walaalkii ma taqaanaa wiil Allah leeyahay meel fog wax iskaga yihiin baan aqaana bas aqay la tokuri waa bota baday wixii warkiisa lama warmaysto kalba qof ku qoranay kaas ay dhashto qofku kula soo hadlaan wuxuu qoranay in maadeer fog baan nahay sheeqaliyan ka ayuu reelo bogay baan ka ahayd yaa ii reebtiyo ku yiri intaas ma si weydiin adiga magacaaga maxay u sheegtay Filsan Abdi Maxamuud isaqiyan ka ahayd u tiri Ahmed Abdalla Saad Musa Ahmed Abdalla yaa ku reebtiyo isla reerkayga wiilkaaga maxaa la yiraahdaa محمد بارده واي هذا ساي غوربا كو دبس كسو waxay ugu dambeysay bil ka hor bay ugu dambeysay meeqo ku soo diray waxba lacag ku soo diray guna ku dibis oo ku sii lacag hal mar buu $20 soo diray markan yaman joogay lacagahayga oo dhan bay isaga iga cunay waa wixii family oo dhan isoo dirayeen badan isaga iga cunay isaga ma ka shaqeeyaa maama ka fihiisi dadku tahriibiya marka isagu manin ladoo lacag haysta ama soo nin wax haysan waxta dadka tahriibi mooyna wax kale kuma ogay maya marka gurigiis ku nooleed manin lacag haysto wax u soo dhacayaan wax kala dalaalayo oo iska ladan mise nin alyoomka maanta wax tahriibin aan waxba soo galayno shiido ah nan iska waxa ahaa dhaxdhaxaada adiga Ahmed Abdalla ka taa raa'is ma banka yaa ku reebtiya isra xaafada Ahmed Abdalla hooyadana Ahmed Abdalla ka taa waa raa'is ma wasqud ma deero horay carruur musadash maaniga ha wiilkana ku horreey ha wiilkana igu horreey war ugu baahay ha ma qasan asqabtay ninkan Kamal waxaan asqabnay gabiga ba dhowr bilood marka hore lacagta ku tahriibisay ku sii in aan shaqaystay in family-gu soo direen marka adigu ma tagtay meel la maxal maxaa tiri meel la maxal iyo ahad iyo ma tagtay ahad iyo maxal iyo ma tagtay meelahaas inta badankayga waxaan joogay cadan baan joogay hal mar oo aan baxay adu waxaan tagay xuduudka agteeda meesha dhiga jun in leeyahay maqaadis ma ka soo jirto wallahi taahiro afti meel aan ka cunteeyay markii hore intii hore oo dhan basaatiin baan joognay basaatiin markaan joognay meel aan ka soo adeegan jirnay waan soo noqon jirnay aniga hablahayaga habla badan soo jirta ya maqaad ka cunteys oo alaxad ku taala wallahi maqaaxiyo badankooga ma kala gargaran way carabi ba ku wada qornaa waxba kama garan carabi inna ma naqaan حدود waxaan ka hadlayaa oo Yaman iyo Saudi Arabia meel baan geeyay raqwa meel la dhahay meel magac baan la geeyay qolka Naciimo laga caawiyo ha mar baa laga caawiyaan way ma dukaanka lagu furaaw yaa walaal dukaan ma lagu furin dukaan waa lay furay intii ma freshi waxa iga qaadatay alxamdulillah intii ilaahay iga soo siiyana waan haystaa imika حتى سمالا ما تشوغ لكن مركز جيمان بان شوغي waxaan ku imid marka maxkamadda kala xukuntay isagii anigana way xukuntay isagana way xukuntay aniga waxay ku xukuntay inta aan xaamilada ahay yani in ilmahayga aan yani isaguna wixii dhakhtaraan u baahan in dhakhtarka geeyo wixii aan maxay raadaaye masaarif aan u baahanayna masaarifta yani bixiyo ay ku kaliftay isagana waxay ku tiri maalinkay yani umusho inantaas ma oranayso macadaan ba mamadooba ma oranayso ilmaha halkaas ku dhigaysa adna wixii xaq iyo xuquuqa ee maxkamadda kugu ganaaxdo kugu xukunto ayaad bixinaysaa baa lagu yiri dadna wuxuu waayahay markan 5 bilood gaaray ayaan waxaan dareemay yani jacayl hooyanimaan dareemay yani waxaan dareemay in maanta ilmahayga halka kaga tagi karo walow inuu noolaan inuu dhiman Allahu a'lam aanan ogeyn waxaan siri inanay ilmahaaga hooyo la'aan bad ku soo kortay xanuunkii hooyo la'aan ee tahay oo dhan baan dareemaya dadna xasiri inanay aaba lagaga tagana ma arka sidii ilmahaaga wuxuu doonaba ha ku noqday iska qaado abtiyaan la soo hadla marka abtiyaan ku raabtay waxaan u baahanahay maxaan raadayay ilmahayga yar
inaan abtiis kala imaado wadankii maadaama anugu hooyo la-aan aan kusoo koray oon dhibta hooyo la-aanta waxay tahayna aan dareemi karo deetana waayahay buu igu abti nin walba arsaaqadiisa ayuu wataa buu igu abtiyo ee iska soo kaxayso ilmahaaga yar wixii lagugu soo kaxaynayana anagaa kuu soo diray buu igu abti wixii qofkii kusoo kaxayn lahaa markaa meesha kaa soo saari lahaana anigaa abti kusoo diray oo kuu qaban qaabin sidii abti markii igu qaban qaabiyey deetana sidii baa laygu soo diray ninkii marka laga soo diray baa laysoo saaray doontii baa hargeysa laygu keenay hargeysaan ku umulay hargeysa markaan ku umulay ilaa iyo imika markaan hargeysa umulay yacni caqabadayga ma yahay xanuunkii madaxoo igu batay oo yacni markaan in yar kelmad laygu idhahdaba aantu madaxu admoodo sid inuu miyirkoo iga baxay oo iga tagayo ilmahayga yaraayo yacni dhinacuu ku tirsan yahay iyo dhinacuu ka tirsan yahay aan la garanayn oo dadka qaarkood igu aflagaadaynayaan واي marka waa yahay waa ku fahmay stresskaas waa isku jira waa sax waa dhici kartaa taasi qabiilka ayaa way baan hay shaqaya ka taa Sacad Muuse Axmed Cabdallah muku wallahi muku billahi muku tallahi wax noo shees muriin wallahi way ugu billahi way ugu tallahi waxaan idin sheegaynaa runtii aan beenaa ay soco dayro maalmaha kamid ah ayaa wax dhacday anigu marka hore yaraantayda rajaanimaan kusoo koray intii aan iska caafimaadka qabay waxaan u shaqaysan jiray awlaadeyda intaanan taariibin ka hor bacal waxaan u shaqaysan jiray awlaadeyda saan ugu shaqaysanay maalmaha 2018 nin baan guursanay intii muddo yar baan isqabnay waxaan jeclaystay inaan wadanka ka baxo oon maxaa dhahdaay iska aan tahriibo saan awlaadeydana kusoo shaqaysto aan waalidkayga naftayda iyo awlaadeydaba aan wax ugu taro kadib meel kale maan tahriibin waxaan tahriibay xaggan Aasiyan tahriibay halkan aan ka baxay waxaan tagay Boosaasan kasii baxay Yemen baan tagay ala kula xal waxaan doonayay inaan Sacuudi Carabiya u baxo ilaahay ii musa qadarin laakiin markaan joogay waxoogaa muddo dhowr bilood markaan joogay magafiyaashan lagu dago qolo xajinta lagu dago magafiyaala jirta inamadii magafiyaasha mid kamid ah ayaa aniga jeclaaday kabacdi aniga markii jeclaaday wixii walaal filsanay aan ku guursado kabacdi waxaan ku walaalmaya hadafaan u soo baxay awlaadeydan u soo baxay inaan shaqeeyo marka hadafkan u soo baxay baa ii muuqda baan ku walaal marhaba baan hatan inaan guursado haddana mar labaad buu igu soo celiyay tiraba 3 jeer markii tiraba 4 jeer markii igu soo celiyay ayaabaan anigana waan ka diiday waayo awlaadan ka imid iyo inamada hablaha cidii aan yarkii way geerana aan ka imid baa ii muuqday iyo xaaladda ay ku sugnaayeen kabacdi sidii markii ahayd farahooyga qaaday waa yahay bigu raab mar walba aan ku raado walaalmay hadafan leeyahay hay walaalo bigu oran jiray waa caadi hadaf leedahay hadafkaaga aad ka gungaaray kadib maalmaha kamid ah sidii markan ahaa يعني وي إمديدي مالمها كان وحي قدام بي وي إمديدي markuu imadiiday waxaan noqday qof maxaan raadaay aan miyirkaygu joogin hadafkii aan lahaa aan u soo baxay aan doonayay inaan yacni Sacuudi Carabiya aan ku soo shaqaysto hadafkayga dhan baa iga baaba'ay oo wixii aan ku socdo dhan baa iga masaxay heer waxaan gaaray sidaan daba carar 4 saac meesha joogaba aan la taagnaado sidii markaan ahaa muddo maxaraadaay adoo sidii markuu igu mididay oo mar walba hadalkiisa xiiseynayay markuu iga baxana yani aan murugoonay markuu la joogana aan yani hagaagay ayuu habeenada kamid ah qolbu igeeyay qolkii markuu igeeyay habla reewaqooyi joogay hablaha reewaqooyiga wuxuu gudbaa hablihiin iyo kale waayahay baan dhahay iskala fariistay hablihii markii habeen joogay way naga tageen dadna qolkii habeenka ku xigay wuxuu keenay 4 wadaad 4 wadaad intuuna wadaadada keenin wuxuu ku shiday faax markuu ku shiday ayuu 4 wadaad baa yimid 4 wadaad markii yimaadeen anigu waan yaaban oo yaab bay ka soo hartaas man u eegay wadaadadii dadna wadaadadii markay soo fadhiistaan bay 4 su'aalood bay weydiiyeen 4 su'aalood markay weydiiyeen waxay u raadeen 4 magacaab ay u raadeen magacaygu 3 baan dadna waxay u raadeen يعني نين هورا سومرتي ما isaga u sheegay in nin hore soomar way marka horaan wada sheekaysan dad asxaab meel iska wada joogay baan ahay kabacdi waan u sheegay waxaan ku walaalo ha abti baan adeer baan ku nin hore soomaray kabacdi dadana badanka dad yani dadkeenaas wixii aaminsan yihiin
inay nanta wali la'aan ay mehersamayso kabacdi wixii gulaad mehersamayso kadib su'aashii kale weydiin waxay ahayd meherkaagu waa imisa dadna meherkiisa kala boodi yiri intaas weeyaan kabacdi wixii gula ninkan ma ogashay haabaan ku ogolahay waayo waxa laga joojiyay kalimadda maya oo dhan ayaa laga joojiyay waxaan ku hadlaa waxa ma rabtaa halkaan mar bas xagee joogtiin Yemen baan joogay marka ninkan kuma diidaysanay maxay la magaciisa Ismaan Kamaaluddin baa la dhahaa yuu yahay asagu Kamaaluddin aniga horta waagii hore ma weydiinin oo markii dambe awlaad u dhalaan ma hayr u dhalay ayaan halkaan animida caqabada badan ay soo wajiyeen baan la hadlan ku wariyahay walaal qoladaada isku kaysoo sheeg dadna wixii ugu aan waxaan ahay nin shaqaale oo la boogay baan ahay ninka hooyadiis ma aragtay weliga may ma arag hooyadii weliga ma lahaas hal habeen bii la soo hadashay magaceed ma taqaana hooyadiis kaniyoona la dhaho ma garanaya aabihi ma lahaas weliga may lama hadal walaalkii ma lahaas may wiil ay wax isku yihiin hadda xagu jooga asaga Yemen buu joogaa taleefanadiisa heesaa inay ku soo diray Daahiro okay Yemen buu joogaa daadis ma qiyaas meeqa waa meeq jir waay ilaa iyo dhowr iyo 30 weeyaan okay meeqa u dhashay meeqa roo dhashay hal xaban u dhalay cunuga hadda hurda Hargeysa kaysatay Hargeysa kaysatay jee u soo baxday Yemen waxa laga soo baxay markuu ilmo diideeyay sheekada yani inaan ku dhameystiro maad ku fahmaysaa in yar waxa ka baahay haye uu kuma diideeyay haye soo afartii wadaad halkii markay igu meheriyeen yani way iga tageen markay iga tageen intii soo istaagay guriyana diid aan bayaal waan ku qabaa marka waxaan ku hadlay waan garab waaye way iga tageen afartii wadaad guriga kaligii baa jooga cid islaama meel ma garanay meel aan baxa ma garanay cid qof kale ma garanay ashaata ma garanay af Carabi ma garanay wax meel aan dhaqaaqa ma jirto ilmahayga yar iyo calal kale ana halka ku xirano baa family hadaan la soo hadlo waan sii socdaa ma ku raadaan baan soo laabnay labada eri ma ku raada waa yani dib ay haysata meel baan joogaa nin baan guursaday waxaas dhan kuma yiraahdo family-gayga kabacdi sidii markay ahayd ilmahayga reemkan haysta iyo calal kale markii calal kale aad xanuun badan baan dareemay ilaahay waxaan ku alxamdulillah waxaan ilaahay ku mahadnaqayaa adoo markii maxaa dhacday xanuun badan aan dareemay bir badan baa soo gashay bishar badan markii soo gashay bishar badan dhawaan ducaysanay ilaahay iga saar dhibaatadan ilaahay rafaadkan iyo silaaxan iga saar alxamdulillah kabacdi markii rabadaantii dhamaatay habeenkii caawa rabadaan kala soo galisay ay wixii soo iibiyay dhar wada cusub aan dharkii horeba ahayn kabacdi sidii markay ahayd ayaaba bishra badan baa dhamaatay habeenkii marka bishra badan dhamaatay habeenkii u dambeysay dhar wada baro iyo soo wada qashti oo dharkii hore aan meesha ka xiranaya aan hayn maadaama aanan guriga ka bixi kareynin ilaa iyo isagoo gacanta iga qabto iyo dhaqaajiyo mooyaane sidii markay ahayd subaxnimada baa la gaaray inanta i badbaadin doonta أجري حسنات الله كسيو الطبقة نقصر يصدقني أي subaxnimada bay soo martay waqti salaam calaykum abaayo san ku calaykum san ina rabo qoya ma tahay san ku haro qoy baanahay maxad noo soo bareedan weeyday ku tiro dadna inta in yar markaan wada hadalnay ku tiro salaada ciid madan aadin san ku waan tagayaa meel salaada ciid haya baa inaga tabakaale bay ku tiro yaa bano salaada ciid sad ku tagi doontaa ayaa ma kan dharkii xidhay in marwin sistay waan baxay alxamdulillah dibadii baan istaago qaadan waa bay u dhacayba dibadii markaan istaago qaadan waa igu dhacay aan arkayna dibadii taaganahay waaba socdaba waan talaabsadayba aad baan u faraxsanahay waayo anoo talaabsanayo kaliya socdaba yacni waxoogaa ma arag mar walba waan isla yaabana waxaad la tiro dhibtan maxay kugu dhacday waxaan haystay dhanba waan garan lahaa salaadii ciidan alxamdulillah tagay intii oo qodbada socotay waan ducaystay ilaahay culayskan iga saar ilaahay dhibkan ilaahay iga saar ilaahay halkan ku ducaystay alxamdulillah ilaahay way ii aqbalay inantii marka xagga sare ka soo fooq dabqa sare ka soo degtay subaxnimadii ciid mubarak ay ugu lahayd ayaan arkay dhinacayga dambe ku tukanaysa maasay ku tiri salaamu calaykum walaalo saakuu calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu walaal bisay ku tiri maxaad kor noogu mooyda noo soo bariidan weydadeen maadaama inaan rabo qooyataa ilaahay bay iga yeersiiyey waan ku dhegay inantii waxaan ku walaalo magaca masay ku tiri aamina la dhahaa saan ku walaal aaminahay qof aan u sir sheegan karo walaal ma tahay masay ku tiri haa waayahay saan ku walaalo dhibkaas ay haystee maxaa sameeya masay u tawalaalo hadaanu nahay rabo konfureedka halkan jooga bay ku tiri badankayagu
sixirka iyo waxaasi ku dheeray yani ama lagu sixir waxaan ku wada dhagaygaasaan ka maqla mooyaane weli ma aragna ku qof la sixiro dadana anagoon hadalkii wada dhamaysan buu soo gaaray soo iidan waxba iyo dhan buu soo gaaray ka bacdi ha baa in fiican alxamdulillah soo wanaagsan waa halkii bacanaatay ku tabar ee inta waqooyiga maxadii barweyd iyo imika way iska baro iyo waan bartay waan dhaqaaqna xaafadii baan nimid iyaduna xaafadeeda batmid igama ihadhana maalin walba way timaadaa albaabkay usoo garaacdaa waxay ku tiraahdaa waqti maxaa jirtay wax sameynaa maxaan kuu qabta maxaan kuu caawin karaa ajar iyo xasanaad allah ka sii mar walba uun duceeya mar walba sidii ii wadi sheekh baa u tagtay sheekha marka u tagtay waxay ku tiri ina Soomaaliyeed oo caynka saas jirta on guriga kasoo bixi karin sheekha maxaa sameeya dadna wuxuu soo dhibay salid yar oo noqon oo meelahaas leed kadib salidiiba wuxuu gura iyo wuxuu kusoo yidhi inta waxa ku tiri afarta baab camarso afarta baab camarkan waxoogaa marsanaaye ayaa alxamdulillah ayaaba ku noqotay sheekh wuxuu maalinka helay maalinka yani usiraado astraadid uu baxay amba fursad aad ku heshid isoo kaxee inanta wax guriga yaalana ha u xirin yani waxaad meeshaada ka soo qaado dhan u soo xid muddan raadinay muddo bil ku dhadhowaan raadinay inuu baxo maalin baan ugu melowda la yiraahdo baxaya maalinka baan aad u farxay inantii baan la hadlan ku walaal uu baxay waxay ku tahay soo habsaday sug way soo habsatay inuu baxay alxamdulillah way ka haysay sheekh bigiisi sheekh markan gaaridii samadaasaan ka dhawaaqay qof xanuunsan sabaanaha intaana sheekh gaarin baan quraankiisiiba aan aad yani anoo miyirkayga maankayga joogan aad ugu runtii qaqaqaqaqamsiigo marka dambe sheekh leeyay idayga sheekayn doonta xaaladeedii noqotay iyo sidii isku bedeshay iyo yani alxamdulillah iyo sida markaan noqday kadib sheekh biga soo celisay anigoo cabsanayno faraha iyo gacmo lagu hoosano dhidan ama kadib kaga soo baxa ama dhulkii cirkan oo khayray alxamdulillah ka bacdi markaan soo noqonay wax kale ima soo sin maadaama aan xaamilaha wixii soo sii dhir lagu shubanayo caana lagu qasaayo ka bacdi inantiiba muddo ila tacaalaysay oo caanihii igu soo darisay oo ii keenaysay mar walba oo caanihii igu soo laaqasay markuu soo baxaba xagga saranta ka eegto jaranjarada xagga sare ay ii soo laaqasay alxamdulillah waan fududaaday runtii haleeski baa iga digay waa farxay kulaylkii aanay dhibi jirin basaatiin baa dhibay markii hore haddaan aqalkaas ka dhex fadhiyo kulayl kasta oo dhacay yani imuu dhibi jirin kulaylkii baa dhibay aqalkii baan xamili waayey dhulkii baa ii qaadi waayey waxa laali waxaan sameyn garan waayey isagii baan dib ugu qaylay oo ariyaan hagama fadhigi karo war dadna inantii baan xaggayga sare ku cararay wax ku dhaca qolka aaminaan aadaya qolka aamina markaan tagay ayaan alxamdulillah si wanaagsan biisoo dhaweysay way qaabishay maalin walba inta todobadan maalin walba iyada ku cararaa nafmooda way kuleelkii marka hore imu dhibi jirin marka kadib inantiiba yani markii inantiida qolkayga ku orday maalin walba maalinta ii xanaaq wixii wali inanta maalin walba maxaa qolkayga ka doonanaysaa gurigayga maxaa ka doonanaysaa heer waxaan gaadhnaa isdagaalno heer wuxuu gaadhay markii dambe oo gacan ii qaado oo cunaha igu dhigo oo fadh calooshayga garaaco laag calooshayga ka dhufto oo layga qabto heer markii dambe waxaan gaadhnay maxkamadda caabalayshe ee Soomaalida ee Yemen la geeyo maxaa yiraahdaa halkii aan ku dacweyno kadib inantina ay dabiib badan iyo joogta dheer igu bixisay sida ay yani ii soo dabiib ilahayd alxamdulillah ka jasaasiyo kadib waxa dhacday sidii markii ahayd maxkamadda caabalayshe ee Soomaalida waxay nagu xukuntay inaan yani dambi dheer iyo wixii markuu bacl afkiisa ka qartay dambigiisa wili waxaas dhan waxaan u sameeyay jacayl aan u qabo iyada kadib waxa dhacday maxaa dhacday maxkamaddu may xukuntay yani dambigiisa dhan afku ka qartay حتى Soomaaliland baan joogay laakiin markaas Yemen baan joogay waxaan ku imid marka maxkamadda kala xukuntay isagii anigana way xukuntay isagana way xukuntay aniga waxay ku xukuntay inta aan xaamilada ahay yani in ilmahayga aan yani isagoona wixii dhakhtaraan u baahan in dhakhtarka geeyo wixii aan maxaa raadaaye masaarif aan u baahanayna masaarifta yani bixiyo ay ku kaliftay isagana waxay ku tiri maalinkay yani umusho inantaasi ma oranayso macadaan baa mamadooba ma oranayso ilmaha halkaas ku dhigaysa adna wixii xaq iyo xaquuqa maxkamadda kugu ganaaxdo kugu xukunto ayaad bixinaysaa baa lagu ori dadna wuxuu waayahay markaan 5 bilood gaaray ayaan waxaan dareemay yani jacayl hooynimaan dareemay
يعني waxaan dareemay inaan maanta ilmahayga halka kaga tagi karay walow inuu noolaan inuu dhiman Allahu aclam aanan ogeyn waxaan siri inaan ilmahaaga hooyo la'aan bad ku soo kortay xanuunkii hooyo la'aan ee tahay oo dhan baan dareemayaa dadna waxaan siri inaan aaba lagaga tagana ma arka sidii ilmahaaga wuxuu doonaba ha ku noqdo iska qaado abtiyaan la soo hadlay marka abtiyaan ku raabtay waxaan u baahanahay maxaan raadayay ilmahayga yar inaan abtiis kala imaado wadankii maadaama aan ugu hooyo la'aan aan ku soo koray oo dhibto hooyo la'aanta waxay tahayna aan dareemi karo dadna waa yahay abtina walba arsaaqadiisa ay wataa wiigu raabtiyo iska soo kaxayso ilmahaaga yar wixii lagugu soo kaxaynayna anaga ku soo diray wiigu raabti wixii qofkii ku soo kaxay lahaa marka meesha ka soo saari lahaa aniga abti ku soo diray ku qaban qaabin sidii abti markii ku qaban qaabiyay dadna sidii ba lagu soo diray ninkii marka la soo diray ba la soo saaray doontii ba hargeysa la u keenay hargeysan ku umulay hargeysa markaan ku umulay ilaa imika markaan hargeysa umulay yani aqabadii kamiha xanuunkii madaxo igu batay oo yani markaan in yar kelmad la igu raadaba aantu madaxo admoodo sidii inuu miyirka iga baxay oo iga tagay ilmahayga yaraayo yani dhinaca ku tirsan yahay dhinaca ka tirsan yahay aan la garanayn oo dadka qaarkood igu afagaadeenayaan ay oranayaan waay marka waa yahay waa ku fahmay stresskaas waa isku jira waa sax waa dhici kartaa taasi waxay ku dhahaa kelmadaha mar walba i cafi bay igu dhaha walaal i cafi ayaanay walaal i cafi bay igu dhahdaa mar walba ay khaldamay dambi baan ku geystay rafaad baan ku mariyay sidii baan ku mariyay i cafi tani waa adduun waa laga tagayaa bay igu dhahdaa wallahi mar walba iga soo hadlo in meer baad ii haysa dhibaatadan ku soo mariyay rafaadkayga waan garanayaa i cafi buu mar walba igu dhahaa waxaan ku dhahdaa ma khaldamo waa ilaah waan ku cafi waxba kuma qabo haddana hooyaan ahay hooyo aan waxba haysan baan ahay